Karim Benzema ayaa ugu dhawaaqay bartiisa bulshada in uu ka fariisan doono ciyaaraha caalamiga ah ee Faransa. Arrintan ayaa timid kadib markii uu khilaaf galay ka mid ahaanshihiisa koobka adduunka kaasoo ugu dambeyntii sababay in ciyaaryahanka Real Madrid uu ka baxo xerada tababarka isagoo dhaawac soo gaaray. Isniinta maanta ah, weeraryahanka Real Madrid ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay xulkiisa qaranka Faransa. Ku dhawaaqistan ayaa imaanaysa maalin kadib markii koobka adduunka 2022 uu soo xirmay. Benzema ma awoodin inuu qayb ka noqdo tartanka kadib markii uu dhaawac soo gaaray ka hor kulankii ugu horeeyay ee Le Bleu ee tartanka, taasoo ugu dambeyntii ku qasabtay inuu ka tago xerada tababarka isla markaana uu ka maqnaado Qatar. Xirfadiisa caalamiga ah waxay ahayd mid ay ka buuxaan heerar sare iyo hoos u dhac isagoo saftay kulankiisii ugu horeeyay 28 Maarso 2007 ciyaartii dhex martay Faransa iyo Austria. Waxa uu sii waday inuu ka qayb qaato tartamada xigay sida koobkii adduunka ee 2010, laakiin muuqaaladiisa waxaa qariyay murano. Ka hor Euro 2016 waxaa la shaaciyay in Benzema uusan ciyaari doonin, taasoo ahayd mid la mid ah tii ku dhacday koobkii adduunka 2018 ee Russia. Ciyaaryahanka Real Madrid ee ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or bishii Oktoobar ayaa si aad ah u doonayay inuu ka soo muuqdo Qatar isagoo aan la dooran markii uu Faransa ku guuleystay koobkii adduunka ee Russia 4 sano ka hor. Waxaa laga xayiray kooxda Faransa muddo 5 sano iyo bar ah sababtoo ah waxa uu ku lug lahaa fadeexad ku saabsan cajalad seksi ah oo uu ku lug lahaa saaxiibkiisii hore ee Mathieu Valbuena. Maxkamad la soo taagay sanadkii hore ayaa lagu xukumay 1 sano oo xarig ah iyo ganaax dhan 75,000 oo euro. Koobka adduunka Qatar, tababare Didier Deschamps ayaa doortay inuusan u yeerin Benzema. Karim waxa uu dib ugu soo muuqday xulka Faransa 2021 oo ku beegneed Euro 2020 kaas oo aan lahayn sheeko xiliyeedkii uu rajeynayay, iyadoo Faransa lagu reebay wareegga 16 oo ay reebtay Switzerland. Isku soo wada duub, xiddigan ayaa dhaliyay 37 gool waayihiisa caalamiga ah isagoo oo ciyaaray 97 jeer. Tani waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah weeraryahanada Faransiiska ee ugu guulaha badan abid. Waxa uu ku dhawaaqay oo uu yiri, waxaan sameeyay dadaalo iyo qaladaadba, maanta meeshan joogo waan ku faanayaa, sheekadeeda ayaan qoray oo halkan ayayna ku soo dhamaatay.